kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada janaalkayga cabdirashiid qanciye maanta waxaan idin hayaa qiso jacayl ah oo murugo leh waxaan rajaynayaa qisadan in marka aad dhegaysataan waxyaabo fara badan aad ka dheehan doontaan qisadan waa qiso dhab ah waxayna ku dhacday gabadh Soomaaliyeed oo ku nool gudaha waddanka Soomaaliya waxay ahayd gabar da'yar ah oo 23 sano jir ah waxaana gabadhan ay jeclaatay wiilkaas oo markii hore aan si kedis ah aan isku baranay bay tiri balse caawinaad iyo garab qabasho markii uu u fadiyay kadib waa uu caawiyay waxaana uu u bilowday xiriirkooda mid walaaltinimo ah waxaana dhex maray jacayl aad u wanaagsan oo ku bilowday hab walaaltinimo ah muddo kadib waxaan arkay bay tiri anigoo wiilka si xadaaf ah isku dhex galnay markaana waxaan wax walba u sheegay sidoo kale tana dareen gooni ah ayaan isu haynay labadeena jacayl iyo kalgacayl aan dhammaad lahayn isbarashadeeni kadib waqtigii waa uu sii socday waxaana noqonay dad inta badan iska warhaya nasiib wanaag anigoo kala xishoonayna labadeena waxaan jacaylkayga u horbadhigtay bay tiri wiilka isaga nafsad ahaantiisa dareen gaar ayuu qabay waxaana uu iska dhigay qof markaa ka xishoonaya in qof walaashii xiriir uu la sameeyo hase ahaatee ugu dambayntii waa uu iga aqbalay runtii waan isku faraxsaneen jacayl aan sawir laga bixin karin ayaa ina dhex maray kalsoonida labadeena aan isku qabnayna waxay ahayd mid sii waanaynaysa maalinba maalinta ka dambayso oo uu sii siyaadayo marar badan ayuu iga dalbaday in uu kaamirada iga arko anigoo si wanaagsan u labisan si uu u arko quruxdeeda qarsoon balse xishood iyo cabsi marar badan ayaa iga diiday bay tiri in hab aan wanaagsaneyn muuqaal uu iga arko markii dambe ayuu uu codsaday in uu go'aan ku gaaro oo waxa uu cadaadis igu saaray bay tiri inaan sawiro anigoo qaawan u soo diro maadaama kaamirada aan ka diiday ayadana waa aan isku dayay inaan ka diido oo ay ii cuntami weysay laakiin jacaylku waa balaayo markii dambe anigoo raali ah ayaan is arkay waxaana u diray bay tiri sawiro oo cawradeeda muuqato oo xiriirkeennana isaga uu ii sheegay inuu ku faraxsanaan doono maadaama inta badan aan isla joogin mustaqbalka dhowna aan isguursanayno wuxuu iga dalbaday bay tiri ballanqaad ah in uu ii xifdin doono xitaa haddii aan isguursado aniga aan arki doonin balse nasiib xumo mar baan isku dhacnay arrimo dhanka qoyska awgiisa waalidkay ayaana igula taliyay in aan wiilka isaga haro oo aan faraha kala baxo jacaylkiisa iyo afaarihiisaba ayagoo igu wargeliyay in nolosha hoose ay tahay mid qariban oo ay jiraan waxyaabo badan oo iga qariyay waalidkay taladiisa ayaan qaatay maxaa yeelay talo waalid waa lama diidaan bay tiri inanta balse yarkii jacaylkii inaga dhaxeeyay ayaa la soo baxay weji aanan marnaba ka filayn oo walaaltinimadii bilowgeena iyo xiriirkeennaba uusan asxaan u falin isagoo igu xijiyey inaan isguursano weliba guur qarsoodi ah ka aqbalo amaba aan hal mar si xaaraana isugu tagno haddii kale ayuu iigu hanjabay waxaan dhex dhigi doonaa buu yidhi fadeexad sawiradaadii qaawanaa ayaana adduunyada ku faafin doonaa iyo Soomaalida meel alla meeshay joogto runtii wejigabax iyo weliba wadna xanuun ayay igu noqotay ficilkaasi marnabana kama filin inankaas inuu sidaa samayn doono haddii xiriirkeena uu dhammaado waxaan bilaabay inaan ooyo oo aan si walba isku dayo in aan bariyo oo aan wax aan sameeyo si walbana aan isugu dayo in isaga aan maslaxeeyo balse wuxuu ka fokiil waayay inankan go'aankiisa ah waxa uu doonayo inaan u sameeyo xitaa waxaan isku dayay bay tiri inaan uga cabsiiyo booliiska oo aan ku wargelin doono waalidkayga iyo reerkayga inta ii dhowna aan ku dacweyn doono runtii dhib la'aan
aan la koobi karin iyo rafaad dheer kadib walwal muddo dheer ah si wacan uma harsan umana aan hoyan. raashinkii ayaan ka go'ay inaan nasto iska daa. mararka qaar waxaan iloobay cibaadadii allah oo waxaan ka fikirayay bay tiri dhibka wiilkaas uu samayn karo iyo sumcaddeeda sida ay noqon karto. waxaan go'aansaday inaan weji xumo iyo sharaf daro intaan u soo jiidan lahaa waalidkayga iyo walaalahaygaba inaan u sameeyo bay tiri wuxuu iga rabo. waan u sameeyey maalintaa wixii ka dambeeyena waan isaga haray. asigii wuu i nabadgeliyey. waxaanba ku faraxsanahay inuuban sawiradan faafin maadaama uu dantuu lahaa uu iga gaaray bay tiri. gabar walba oo Soomaaliyeed waxaan kula talin lahayn asxaabta ku xiran boggan iyo janaalkanba inaysan fududaysan waxyaabaha sharaf darada u keeni kara sida wixii ku dhacay ama inantaasi. teeda kale bay tiri gabdhow ragga oo dhan ma wada xumo ee qaar damiir laabayaal ayaa jira oo xumeynaya dumarka. fikrado badan ayaa laga bixiyey inantaas waxaana inta badan dadku ay sheegeen in inantu ay u qalantay go'aanka ay qaadatay iyo sida nolosheeda ay u maareysay. haddii aad ka heshay warbixintan fadlan like, subscribe, share, commentiguna waa dhankiina.